kulanti wacan wanaagsan meel kasta aad nagala socotaan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno abwaan baashe xasan maxamed iyo macallin cabdiqaadir nuur maxamuud oo loo yaqaano Oxford oo muddo sanad iyo 8 bilood ku xidhnaa jeelasha Hargeysa isla markaasna ku eedaysnaa shirkadda Sam Cable oo la jarjaray qaybtiisa gobolka Oodweyne ugu dambeyntii maxkamadda sare ee Somaliland ayaa muddo 2 sano ah xarigoodii ku salaysay isla markaana markii loo tiriyo muddada ay xidhnaayeen 2 sano ayaa sida ugu dhamaaday isla bishan 12aad 2019 ayay xorriyadoodii dib u heleen magaalada Hargeysa ayaan kula kulannay ugu horeyn aan soo dhaweeyo abwaan baashe iyo macallin cabdiqaadir ما تصدق ولا دوني أبوان باشا دان كهرية أبوان وهرين جددي أتد بالشدة وسقطت لا يدون كصح الحرادة يا معلم أرد مرك وراء أنت أنا سؤال هذا كتشوا ابن وحن دوني أنا المرك وراء إلهي وما هذا نقو ما هذا أردن إلهي باسكلي الحمد لله رب العالمين إله حرية دي نوسو علي ما طبعا لا يد يد بدو كتشوا مني حرية دي مرلبات كو حنو ما هاد نقيا لو يردي hawsheeda ka shaqeynay ilaa maxamed saddexdii maxkamadood kala duwana ilaa tii gobolka iyo tii racfaanka gobolka iyo tan saraba oo ay kamid yihiin Jamaal Xuseen Axmed Ducaale Xuseen Shabeel iyo Mubarak Cabdi Ismaaciil iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan kale u mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay hawsheeda sii deynteeda ay xarigaygaas oo damqay qurbo jooga beesha ee dibadda jooga haday yihiin gudida guud ee beesha garcajis haday yihiin cid kasto arintayada ka qayb qaadatay arin iyo adduun iyo talaba ka qayb qaadatay cid kasto ka damqatay waxa kale oo mahadnaqay xaafadahaygii qoysaskaygii ehelkaygii iyaguna inta aanu xidhnayn maalin walba soo socday ee wixii daruuriyaadeen u baahnay saacad walba nala dul taagnaan mar qura iyaguna caajisin ayaan iyagana aad ugu mahadnaqayaa inta kadib waxaan doonayaa si gaar ugu yar mahadnaqo Chief Aqal Rashid Jambir oo ilaa maalintii CID lagu xidhay ilaa maalinka maanta hawsheeda mar kaliya aan ka bixin حتى فايل يضمانات هنتيدي gurigiisa dhigay in lagu daminto waqtiyada kamid ah markii aanu xidhnay biliyo 8 cisho faylka gurigiisa dhigay oo damaanad lagu saaray iyadoo isla markaaba habeenkii dib hadana nala soo daadan doono markaan habeen maqnayn habeen kaliya intaas waa iga mahadnaq guud waxaan filayaa xarigeygani xarig siyaasadaysan buu ahaa waxaana la xilay 23kii bishii afraad 2018 anigoo inta ka yimi xaafadayna moogin kuuri siyir dhaweeyo gurigeyga halkan ku yaala Sheekh Shukri nin taxi gaariyaro fitso wataan kuuri si dhaweey oo 12kii iyo barkii meelaha tahay ayaa markaan gaarigiisa uga degay ayaa gaawarida xaashida booliska iga wareegtay si argagixisay waliba la qabtay maxaa dhacay taliyaha saldhigan Maxamed Haybe ayaa ciidanka watay gaarigii macaa la soo kaxeeyay waxaad moodaysaa habeenkii oo dhan gaariga saldhigan hub laga baarayo dhinac walba ka baar buu yiraahdaan halka maxaa ka saqaray bay kulba yiraahdaan aniga gaar baa lay wareystay ninkan muxuu ahaa ninkan dawaan taksiilo aan screen ku riisi qaad inankii kala gaar baa la wareystay xalay xal gaariga habeenkii halkaas ku xidhnaa aniga CID da la dhaafiyay ninkii dar ilaahay soo qaaday isaga casarkii dambe ayaa la sii daayay aniga CID da ayaa la gudbiyay habeenkii waxa lagu xareeyay qololka argixisada lagu xareeyay CTU-da marka subaxii damaaniga laga soo saari doonaa qayb yar oo kale oo dhalinyaradan kubsigii lagu xidhay markii dambe la geyn doonaa laakiin habeenkii halkaas aan ku jiray goorma lagu qabtay halkii bas adiga laga qabtay bismillaahir rahmaanir rahiim xilligii la qabtay waxay ahayd 23kii bishii afraad 2018 goobta laga qabtayna waxay ahayd magaalada Hargeysa markii la qabtay anon garanahayn wax la yaalay wax laga doonay ayaa waxa dhacday habeen maalinta la qabtay markii sii horeysay in ciidamada boolisku ay gurigeyga u soo daateen maxay ahayd goorsaq dhaxa oo afartii habeenimo markii soo daateen guriga aniga way iga waayeen waxay qaateen xaaskayga oo umulahayd oo ilmo yar wadata ayay qaateen iyadii iyo ilmihii yaraaba saldhiga qurac dheer ayaa lagu xidhay dabeeto muddo 3 cisho bay xidhnayd kadib markii 3 cisho ay xidhnayd baa xeer ilaalinta warqadda soo qortay oo soo deysay marka aniga waxa laga qabtay suuqa
saas ahayd markaa ujeedada xadhigiina ka dambeysay maxay ahayd bismillaah walaal xadhigaygu wuxuu ahaa horta xadhig siyaasadaysan labadeeda ninba waxaan ahayn laba nin oo xisbiga waddani ka tirsan kaambeynkii iyo xilligii ololihiina si fiican xisbiga ugu soo shaqeeyey doorashadu markay dhacdayna qardofooyin fara badan bay reebtay waxaa jira dad markaa annaga gudaha iyaga ah ayaa brobagandooyin ciidamada sirdoonka u gudbiyey oo yidhi raggani waxay macnaha waxay samaynayaan group aniga waxa laygu eedeeyey waxaad samaysay group WhatsApp oo aad qolo iskugu xidhaysay qurba joogta iyo qolqol joogta kaasoo aad ku mijaxaabinaysay dawladda oo dawladda Muuse Biixi la soo doortay aad ku inqilaabaysay laakiin waxaan la yaabanahay dawladda dhan may waxba kama jirin maxkamaddu ku weeday markii waa maxkamaddu way weeday waan soo gali doonaa hadii la ilaaliyo marka dadkaas ay igu eedeeyay oo yiri groupkaas uu sameeyay oo dawladda ayuu mijaxaabinayay laakiin waxa ayaan darra dawladda dhan ee la soo doortay ee Cabdilqaadir iyo Baasha mijaxaabin karaan ka baqanaysa taas aba hortiyada markeeda hore ayaan darra waxaana fiican dawladdu waxyaabaha propagandooyinka loo soo gudbinayo marka horeba ee ummadda la iskaga hor keenayo inay filter u yeelato kala shaandheeya waayahay waa la idin xidhay labadiinaba markii la idin xidhay maxkamadda gobolka Maroodijeex ayaa marka hore xukun idin guritay muxuu ahaa xukunkaasi ugu horeyn maxkamadda gobolka Maroodijeex walaalo horto in yar markaan u yara noqdo markii la xidhay aniga waxa la qaaday waxa la geeyay CID-da CID-du waa laba qaybood qayb waxa la yiraahdaa CTU-da oo counter terrorist unit macnaha waa qol yar oo laba qof ay galaan oo aan daaqad lahayn oo kulul oo aad ciqaabtiisa aad yaabayso 24 habeen ayaan keligay oo aan qof bil aadana la iyo ogoleyn ayaan ku jiray haddaan soo noqdo su'aashaada maxkamaddii gobolku maxay ama heerarka kala duwanaaye xukunkaagu maray soo koob walaal horta markii baaritaankayagu uu socday baaritaankayagu wuxuu socday 7 bilood markii 7 bilood socday ayaa maxkamaddii gobolka xukun bay soo saartay xukunkaas anigii Abwaan Baashaba labadayadaba waxba waana lagu waayay waxay tiri xorriyadoodii hal loo celiyo maxkamadda gobolka Maroodijeex xeer ilaalinta ayaa rafcaan qaadatay rafcaanka waxay u qaadatay maxkamadda rafcaanka maxkamaddii rafcaanka waxaa ka soo baxay xukun ayaan darra axmaqnimo cadaalad iyo sharciga baalmarsan sumcadda iyo image-ka Somaliland ay leedahay garsoorkeeduna waxyeelo badan u geystay run ahaantiina aan qabo inuu damage fara badan u geystay xukunkaas garsoorihii xukunka qaaday sidii wax ka waragayga la sii daayay maxkamadda xorriyadoodii soo celisay labadayada midkiiba wuxuu ku xukumay 8 sano oo xarig ciqaabeed waxa kale uu raaciyay lacag dhan 652 waa eeda waxa ku waa 652 oo dollar hada milyan ayay kor u dhaafsiisan tahay waa la garan waayay lacagtaasi ma ganaaxba ma madax furasha ma magdhowba wax aliyaala wax lagu qiimeeyo waa la garan waayay eedana kuma soo dirin wax aliyaala waxay tahay labadayada mid kaayana Hargeysa dhan ugama bixin anu nin macallinaane Hargeysa ayaa wax ka dhigay ood weyne waanu dhashay laakiin wali ma tagin waxa la iskala kaysoo doontay waan fahmi waayay eedayadu marka hore waxay ahayd dad bay kicinayeen waani hore ku sheegay group WhatsApp uu sameeyay markii mug yeelan weyday intaas eedayadii hore dadweynaha kicinayeen dabeeto markii taas dhacday xukunka axmaqnimadu soo baxay waxaan u raxfaan qaadanay maxkamadda sare markuu socotay 8 bilood iyo markii socotay ayay xukun soo saartay cadaaladday aragtay iyadoo 3 garsoora baaray 3 garsoor markii ka baaran degeen waxaanay soo malluuqday maxkamaddii racfaanku waxay arkeen inay tahay wax baadil meesha way ka saartay waxay mid kayba ku xukuntay maxkamaddan sare 2 sano 2 sano xarig ciqaabeedkeedu wuxuu noqonayaa walaalo waa 16 bilood annaguna waxaanu xidhnayn 20
bilood sida kadaalig waxaan noo dheeraada 4 bilood baan ugu dheeraada sida kadaalig ayay maxkamaddii sare xorriyadeedii ay dib noogu soo celisay waayahay macallin cabdiqaadir nuur intii ay xidhnaydeen maxaad xusi kartaa dhibaatooyin iyo tacaddi adiga shakhsiyan aad kala kulantay jeelasha Hargeysa walaal horto intaan xidhnaa waxaan soo maray waa saldhigga dhexe iyo CTU-da iyo jeelka weyn ee Hargeysa run ahaantii wax dhibaato oo horta aniga shakhsiyan dadkeenu marka la yiraahdo waa nin macallin ah iyo nin abwaana laba taytal baan sidanay rag siyaasiyiin oo waxaan la garanayo anaga shakhsiyan waxba dhibaato ah nalaguma soo gaarsiin laakiin waxaad arki karaysaa dhibaatooyin fara badan oo saldhigyadeena yaalo walaal saldhigyadeenu ma aha meel qofka bil aadana lagu xiri karo qol yaro inta leeg baa la gelinayaa 20 qof oo kii sirxaanka ahaa kii xabagla ahaa kii tuuga ahaa kii wax soo dhacay kii intiiba iskugu soo galayaan suuli ma laha halkaas ay ku dhaxaarayaan ku dhax kaajayaan waxay doonaan ay sameynayaan marka horta waxaan xukuumadda iyo dadka u soo jeedin lahaa saldhigyadeena in sanitation-kooda iyo nadaafadooda la ilaaliyo aniga ciqaabta ugu badan ee ugu dhacday waxay ahayd CT-da markii la geliyay qolka cilada ah ee 24 cisho aan keligay ku jiray qof bil aadanana inuu i arko leeydiid eheladeyda leeydiiday madaxdeyda salaadiinteyda leeydiiday cid walba leeydiiday inay aragto waxa la yaalo waxaan kasbadayna ma jirto jeelka weyn ee Hargeysa intii aan ku jirnay wax dhibaato kuma waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ciidamada asluubta inta xidhnaydeen waxa jiray nin idin la xidhnaa oo isla kiiska xarigan la waxyeeleeyay ku xidhnaa oo ahaa nin reemi ninka reermiga ah ee idin la xidhnaa isaga arrintiisa maxaad kala socotaa way jirtaa ninkaas waa nin reermiga waa ninkan kiibilka hal xarig buu aan jaray buu nagu yiri waa nin qiraala waa nin reermiga dadka reermiga waa dadka daacada runtu maxkamadaha ka sheegay annagana waa ninkayna daba wadeen mar walba eximer nooga dhigayeen isaguna saddexda darajo maxkamadahaba wuxuu ka sheegay oo run ahaanna ahayd inaanan weligay sarag isna aqoonin aniga CT-da ku jiray maalintii CT-da la isku kaaya keenay ay isku kaaya horeysay ayaa jirta marka ninkaas uu jira walaalo waana kaga nimid jeelkii 3 sano lagu xukumay xarigiisa waxa u dhiman 4 bilood baa u dhiman magdhowgii xariga uu jarayna waa lagu xukumay laakiin lacagtii intaan leekeeday markii hore la xukumay laguma xukumin imaka waxa maxkamaddu tiri maxkamad u awood leh ayaa soo qiimeyn doonta qiimeyn dambe ayaa la gelin doonaa hadii Ilaahay saraano imaka kiiskii la idinku xidhay in la idinka waayay imaka maxay la gudboon adii Cabdiqaadir ahaan maadaama soo baxdeen horta walaalo waxay la gudboon anigu shakhsiyan baan ahay abwaan baashatiisaan u deenayaa aniga kii igu gafay iyo kii propagandada sameeyay iyo kii waxaan soo abuuray iyo kii igu dacweynayay mid kastaba anigu waan cafi Ilaahay baa kala xisaabtami doona anigu cafis baan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa intii aan ku jiray jeelka Hargeysa ciidamada asluubta ee jeelka weyn ee Hargeysa haya ayaan aad ugu mahadnaqayaa sida asluubaysan magacoodu sidoo yahay sida ka dheehan ay ula dhaqmaan maxaabiista waxaan kale u duceynayaa dhammaan asxaabtii maxaabiistii aan kaga imid jeelka Hargeysa mid kiiskiisu adkaa iyo mid uu fududaa intaba inuu Ilaahay faraj degdega u soo furo waxaan aad u magacaabayaa saaxiibkay Cabdimaalik Muuse Coldoon oo kaga soo baxay jeelka oo muddo xarigiisu ahaa 3 sano iyo badh raafaana diiday inuu qaato maxkamadda sare waxaan soo jeedin lahaa cid kaste oo xarigiisa fudaydin karta haday dawlad tahay haday maxkamadda tahay haday cid kale tahay in suxufiga ha مسؤول قلبك كتير بالحالة ما أرمى عافماد درهم تشيران بالحالة دي Cabdimaalik Muuse Coldoon ونحن صاحبنا هاي شيل كنا كودا تشرني رنا هانتينا إن كستانو نسكو قل كتيرين لكن معلوم والبعض يدو ستة سبعة ميل جارا أما ده إنتان وحير هذا ميل يرو لا يرى مير يستوقف وده وكل يرى متجعزه ونسرع تشرني حالة دي عافماد قلب وفي عنتها هاي واحد بروباغندا اللي جاب في دي وعيدا مدى أسلوب تلوسو في دي بيج كيسة
oo ay dad kala hayaan oo wax lagu qoro ayaa la oran jiray adiga ayaa jeelka dhexdiisa ku qora sidii uu sheegay dabeeto waxa Cabdimaalik waa laga qaaday san ogeynba jeelka waa laga qaaday Madheera la geeyay inta Madheera joogay ayaa marar meel seelada la yiraahdo seelo macnaheedu waxa weeye qofka ayaa la karantiinimeynaya qol gaar ah la gelinaya wax walba ayaa lagu riday marka Madheera laakiin falilah alxamdu imka caafimaadkiisu fiican yahay marka shalay ka soo baxay aad baan u wanaagsan waana niyadsan yahay waana suxufi macnaha samafalaa wax badan dadka u qabtay laakiin aan filayo dadkii uu wax u qabtay way ilaabeen abwaan baashi adiga ujeedada koowaad ee lagu xiray marka laga yimaado xariga arrimaha kale aad sheegaysa lagu xiray maxaa kamid ah waxaan filayaa sida Cabdulqaadir sheegay siyaasad bay ahayd xisbiga wadani baan wahayn gabayaan tiriyay baa jiray gabayadu baraha bulshada ku wada jiraan 2017 bishii lixaad gabaygan tiriyay ayaa maalintii dambe bishii lixaad ee dal la keenay bishii lixaad 2018 hal sano u dhaxaysay ee dil la keenay ay CID-du keentay xeerlaaninta soo gudbisay ayaa xeerlaaninta waxa isku soo lifaaqeen gabaygii sanad ka hor aan tiriyay iyo Muuse Bixoon markaa xukuumadda haysaninba oo isagana eediisa ay dhahay waa flagadiso musashaani baa kula haydeen gabaygu baraha bulshada ku jira waxyaalo badan buu ka hadlayaa sixir bararkoo kale sixir barar ciriyoon iyadoo lala cataabayo yaa cunaha shacabkii qabtay ee doolarkii cariyey danyarihii calaacalay ayaa cada ka sii goostay baa ka mid ahayd waxaa ka mid ahayd in ictimaad ka dhoofiya marsidii ceeshku soo marayey cawadii berbera iyo baddii yaa carqaladeeyey yaa guluf cagaha soo dhigtaa iyo ciidan ugu baaqay sidii qaalin caymada fudayd ciiddii gadaya saxaafaddaa ku jirtay codka wariyihii waaye jiray dhabu caddaynayey yaa caburinaya oo saxaafaddii ciidamo u yeeshay baa ku jirtay wuu wajiyo badan buu gabigu ku hadlayey waay adoo soo koobaya intaad ku xidhnayd meelahan jeelasha Hargeysa maxaad xus kartaa ee dhibaatooyin iyo taxaddi aad soo martay dhibaatooyin sida Cabdulqaadir uu sheegay dhibaatooyinka caamka ah ee dadka oo dhan ee xagga nadaafad darrada iyo ciriiriga iyo waayo ninkii sheekh ahaa ee arrin karo kiis madaniye loo soo xidhay iyo kiis sirqaanka ahaa ee markuu meesha soo galo kaadii xaarka ku meedhinayay baa isku meel lagu xidhayaa taasina waxaan filaynaa dhibaato tahay kii kale aan dareejka ciyaalka ahaa wixii oo dhan baa isku xira ah in xiriyaha dadka loo kala duwan nidaam loo kala sameeyo nadaafadoodana la ilaaliyo baan ku tarin lahaa xagga jeelasha laakiin wax dhibaato oo gaar ah oo shakhsiyan i taabatay oo gaar ahaan runtii askarta ciidankaas lubta iyagu aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waa niman nidaamsan oo disciplinkooda iyo dhaqankooda iyo arrintooda wanaagsan yihiin booliiska waxoogaa booliiskuna wallahi rag badan oo wanaagsanna waa leeyahay mid yar qaldanna waa leeyahay bulshadii bay ku jiraan oo bulshadan iyo dibjirtan iyo saqaamintan iyo waxaan soo qabanayaan ayay kulli qaar la falgalayaan marka askartuna si fiican bay noo tixgelinaysay intaan xaggan ku xidhnayn iyo intaan xaggan ku xidhnaynba laakiin waxa igu la yaab badnaa 27kii bishii shanaad ayaanu damaanad ku baxnay anigii Cabdulqaadir iyo kamid baan ahayn damaanadda waxaanu ku baxnay Rabadaan bay ahayd 12kii bishii Rabadaan bay maalin dhaxda guriyahaygi baan ku afuray habeenkii waanu maqnayn waxaanu doonaynaa inuu dabadda isku difaacno oo macamad xaqameedkan iyo wadaashan damaanadda noo soo qaaday ay noogu soo qaadeen habeenkii labaad anigoo suxuuranaya oo qol yaro dabadda intaan baxay ku yar ka furo ku toosiyay kaale suxuur kulay ku yaro wadaada ayuunba askartii oo socotaa dhinac walba ka soo daadatay oo qoryihii sidata oo ciyaalkii dhex qaadaysiyo guriga mararku xaddi weyn waxyaalahaas oo kale oo wixii laga dagaalamay hangash baynu sheegi jiray dawladdiisa barre saqda dhexe soo ilaa soo dhacoon hebel bay la baxeen de wax difference soo dhaxeeya ma jiro kamaanta ay soo daatay booliiskii shacabkuna inay saaxiib noqdaan ba fiican amarada qabdan ee booliiska la siinayo waxay keenaysaa colaad shacabka iyo booliisku inay nacayb yimaado nabadgelyadu waxay ku dhisan tahay markay shacabkii booliisku saaxiib yihiin ay isdhaqanayaan waayo booliisku meel walba ma joogo shacabka meel walba joogo kii lagu soo leedin soo daatay dabatana jeelka dib leedin ka xilin saldhiga dhaxad dib loo geeyay afartii habeenimo ayaa dib loo geeyay waxyaalaha igu la yaabka badnaa ee soo maray bay kamid ahayd ka bacdi intaa kadib ayaa deedna kiiskii lagu sidii baan saldhiga dhaxay ugu jiray ilaa markii dambe raxfaanka naga qaatay haddana jeelka noo gudbay xabsiga cidii ka dambeysay xarigaaga iyo muddadii aad xidhnayd iyo maxaad ayada ka leedahay muddadan xidhnaa waxay haysaa imika Cabdulqaadir sheegay 20 bilood baan xidhnayn maxkamaddii darajada koowaad wax dambi nagu weynaysay soddon bilaawayaal bay naga dhigtay maxkamadda raxfaanka ee gobolka maalin kaliya maxkamadda raxfaanku dhageysataa dood afeedala difaaca looyradayada iyo xeer ilaalinta
maalin labaadna xukun bay ku dhawaaqday maxkamadda gobolku laakiin 7 bilood baa maalin walba dacwadda ay talaabo mariso markhaatiyaal ma haystaan waxa ma haystaan kulba wax la keeniyay ayaa xukunka noocan soo anigu waxaan lahaa qaranka Soomaaliland inta aan yar dhameeyo waxay igu la yaabka ismaan lahayn cimrigii garsooro ummad u dhaxeeyo ummad mas'uuliyad loogu dhiibay ayaa aqligiisu noocaan noqonaya oo sida xukuumay isma lahayn wuxuu u baahan yahay in malaha ruwaayad laga sameeyba ayaan ugu isleeyahay si mug weyn looga hadlo garsoorayaasha noocaas garsoorayaasha ma waxba laakiin kuwa noocaas ah ummadda la gowracaya marka kacaynkaas ummadda lagu eegiyo iyadoo xukunka laftiisa maxkamadda gobolka dambi nagu weedoonaan lahayn haddana maxkamadda sare xukunka ay nagu riday ee labada sanadooda imka waliba 4 bilood soo dhaafnay aad baan u soo dhaweynayaa wax dhiban oo ma arka xukunkaas cidii ka dambeysay xariga niyo xarigayga waxa ka dambeeyay kulay dad basaasino jaajuusiina dadka marka qaranku dhimanayo jaajuusiin iyo dad wax soo dhagadhigeeya lagu waashaa dawladda Soomaaliya basaasay niyo kulay oday bar leeyay in dadka iska saamaxo deedna wuxuu reebel mooyar dadka kala dhan weega saamax adeer maxad reebel u saamaxoodi baa leeyay nimanka hebel iyo hebel igu dhalay buu ayaan saamaxa marka kulay dadka badankooda waa iska cafiyay madaxweynaha qaranka laakiin isaga waxaan tala siin lahaa maxkamadaha inuu u sameeyo guddi gaar ah oo qarsoon oo la aqoonin oo warbixin ka keento isaga warbixinta cadaaladdu si ay u hagaagto sideedaba cadaaladdu hadday lunta nabadgelyo burburta marka madaxweynaha waxaan siin lahaa inuu maxkamadaha iyo garsoorka iyo xabsiyad u dirsado aan la aqoonin oo qarsoodiyo ka soo shaqeeyo wixii fool xumo ay leeyihiin soo gudbiyo si loo saxo ogaada waxaan u ducaynayaa maxaabiistii xabsiga aan ku wada jiray inuu ilaahay mid walba arrinkiisa u sakhiro ayaan ugu ducaynayaa cabdimalik musuul doon sidaa uu sheegayo cabdilqaadir saa uu sheegay isagana waan ducaynaya dadkii samafalo ah cabdimalik saxafi samafalo abuha waxaan filayaa sidii uu ummadda wax bulshada wax ugu sheego waxa weey jeelka intaan ku jirnay waxa jira dad fara badan oo ku dhiban markaan leeyahay dad fara badan oo xarigu ku dhaafay waxa jirta qolo la xukumay oo xarigoodii intuu muddo dhaafay haddana aan waxba laga qabanin kulla aadama khadaa wa khayrukum tawaabuun qofku uu gafi karaa laakiin marka sifo sharciya samayso ee uu xukunkiisu dhamaado waxaan madaxweynaha iyo garsoorkaba u soo jeedin lahaa raggaas waa rag cadiban oo dhibaataysan in iyagana arrinkooda loo eego loo soo dejiyo way xarigoodii intuu dhamaaday ayuu mid kale ku dhamaaday haddana waa la iska haystaa markaan uu sharcigan meel ku qorayo taana ma garanayo daawadayaal intaasi waxaanu ku soo koobaynaa waraysigii gaarka ahaa ee aanu la yeelanay abwaan baashe xasan maxamed iyo macalin cabdiqaadir nuur maxamuud oo muddo sanad iyo 8 bilood ku xidhnaa jeelasha Hargeysa kuna eedaysnaa inay waxyeello u geysteen xariga shirkadda Samkeyber barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigoo Cali Fahada waa kamaradii Cabdiqani Jaamac Kaarshe iyo Maxamed Jamaal Jirde intaaynu ku kulmayno barnaamijyada dambe sidaas nabadgelyo